wadamada gartay gobanimada yadaakar waaqsaday xornimooyinan gaarugooyin kaygii kaste guushayada jecel abal kunahban gaarugu haya abal kunahban abal kunahban gaarugu haya wadamada gartay gobanimada yadaakar waaqsaday xornimooyinan gaarugooyin kaygii kaste guushayada jecel abal kunahban gaarugu haya abal kunahban abal kunahban gaarugu haya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay wadanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhigiisa wadanka Kenya safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay wadanka Kenya oo inaga dhaxeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardargelin lahaa muddada ay ku sugayeen wafdiga madaxweynuhu wadanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhigiisa wadanka Kenya iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi madaxweynaha waxa wafdiga ku wehelinaya xubno kamid ah golaha wasiirada oo ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Umar Cali Cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Cawad insha Allah ta'ala marka ay ku soo guriyeen noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayuu wixii faahfaahina ee kulamada ay safarka ka soo baxana leedin la wadaagi doona aad baa u mahadsantiin